السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ku soo dhawaada telefishinka STN waxa caawa halkan nagula sugan wasiirka qorsheynta qaranka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamuud Bene mudane ku soo dhaw marka hore waxa dabcan waxa tahay wasiirka qorsheynta waana wasaarad aad u baaxad badan bal muddo yar baad joogtay waxoogaado soo koobay waxqabadkaagii وما سنتهاي عوالة أديك يبهذا تيفيجا أنا أبو فرحسنا إن أنا عاو إسرقنا وزارة قرشين مال قشة يهرمرك رقالها ووزارة وكيل أما بكشة قيسو قرشين تقرنك أما ب national development blank أما قرشها هرمرين تقرنك سيدو كلا بورتفوليوها مال قشة دالك إيو economic development أنا وحنا لدورتي لبدي أغسطس الحمد لله دور بلا هاد جوجنا هولا في عن أو بلا وهنا قبس ما جرى شقدي هوري أو بلا بتي الدولة دي هوري ودي ما أنا جنا الدولة كستبا وقرء سكودي ما هوري كسي ودينا هذا وحنا سوق جبوا بالشركات وين والشركة عالمية مال قشة الصومالي لا أو إلا دور بقول قفوض جنا ستة مال مع كلها أجانب يدخل بالجوج هو دي بدك كي مت إكسوقيب قلنا شركة يجوهر النوع الصومالي كدعوها laba bil iyo bar aan ka shaqeynayay muddo la eg alxamdulillah si guul oo sharaf leh ayay noogu dhacday madaxweynaha Soomaaliya noo furay ra'iisul wasaaraha dalkana waa noo xiray wax kalena ma ahayn shirkaas waxa loogu tiragalay in Soomaaliya amnigana waa laga shaqeynayaa oo madaxweynaha dalkii ra'iisul wasaaraha dawladdan oo dhanba amnigana waan ka shaqeynaynaa gacanta kale intana horumar iyo shaqo abuur iyo maxaan ku dhahaa maalgashi baan ka shaqeynaynaa برنامج وين محكودها national development blank number 9 review جي ساعات الصعدة وعن جنوري إلى مارس عن سوق بجوين دونا هؤلاء سوا وين إنه الصعدة الحمد لله هذا وفرحنا إن مينيابوليس صوب بقول سيقول إن شاء الله ضد بس سؤال كقباء يعني وسارده ضد واحد سرادان ما محي صوت هاي صوماليا وسوت شيدان لا هاي مالقشيال وين dad baa aaminsan in uuna xeerka maalgashiga una dhameystirneen taas ma jirta xeerka maalgashiga waa dhameystiran yahay 2015 baa la baasgareeyay xeerkaas bis ma ahan xeerarka kale kaabiye ee sharciga shirkadaha baa diyaarsan waxa diyaarsan World Bank-ga qaybta maalgashiga insure gareysa ee Multilateral Investment Guarantee Agency noo diyaarsan xeerar badan oo noo diyaarsan way jiraan xeerar wiilasha ku socoto oo really u baahan in la dhameystiran way jirtaa xeer la'aan ma hayso laakiin in dalka maalgashi loo soo jiido cawaalo waxay u baahan tahay shaqo badan in la geliyo alxamdulillah haddana waan bilownay waana kor waa u sii qaadi doonaa waxaana rajaynaynaa sanadkan 2023 inaan si laba jibaarno oo aan soo jiidano ugu yaraan dhowr maalgashi oo dalka Soomaaliya macaan u soo bedonayso ugu dambeyntii qofku markuu meel hogaaminayo isaga laftigiisu waxa uu leeyahay aragti oo shakhsiyaaneed oo rabo inuu waxa ku hormariyo maxay tahay aragtidaada wasaaradda baaxadda weyn aad ku kordhinayso qorshahaaga adiga laftigaaga muxuu yahay afar shay baan rabaa inaan xoog saarno koow qorshaha horumarinta qaranka markii hore si guud loo diyaariyay annaga waxaan rabnaa inaan dib u noqoshadiisa iyo midka tobanaad markaan hadda ka shaqeynayno inaan qorshe horumarineed oo mashaariicaysan oo maxaan ku dhahaa cost garaysan inaan sameeyno sidoo kale waxaan rabnaa mashaariicda dalka ka socdo inaan dabagalkeedii iyo kormeerkeedii iyo qiimeynteedii inaan aad kor ugu qaadno si mashruuc kasta ujeedadii loogu talagalay la gaaro sidoo kale waxaan rabnaa inaan horumarino data ama xog oo dalka Soomaaliya lagu ogaanayo waxa dalka soo galay amaba horumar ahaaneed amaba dadka deeq bixiyaasha ayna siiyaan amaba maxaan ku dhahaa iyo cadadka adduunka oo nagu deeqeen iyo meelaha ku baxeen iyo haddii go'aano la qaadanayo wixii naga saaciid lahay sidoo kale inta statistically wasaaraddan hoos yimaado oo ayadana lagu cabirayo deetooyinka xogagta ee dhaqaalaha ama unemployment-ga ama inflation-ka ama maxaan ku dhahaa workforce-ga ama labor force-ga waxa soo dhan lagu cadeynaa marka hawlo badan oo waaweyn oo wasaaradda qorshaheeda ay tahay baan rabnaa insha Allah inaan kor u qaadno ballaarino laguna guulaysto Ilaahay insha Allah waa guul baa ku rajaynaynaa mudane wasiir aad iyo aad baad u mahadsantahay